Hello, السلام عليكم. صباح wanaagsan gabdho. Waa idin salaamaa. Aamina waaye. Waxaan joogaa meesha tareenka laga raaco Birmingham, tareenka meesha ugu weyn oo la yiraahdo New Street Station. Waxaa jira balan oo nooti la jirtay oo ahayd hablaha ama gabdhaha Soomaaliyeed ee masaakiinta ah oo aan barahan kula xiriirno in aan wixii aanu isdhaanno isu sheegno qaasatan la talinta dhinaca maxay ahayd tolay fayadhowridda maskaxda. maanta waxaan rabaa inaan idin sharxo waxa uu yahay stress sida balankeenu ahaa. waa maxay stress? What's stress? Stress waxa waaye marka maskaxdu dareento cadaadis deetana dhacaan ay soo dayso maskaxda, dhacaankaasoo dhacaan gaara ah, dhacaankaas ay jirka ku dayso ka bacdina jirku uu ka falcelintaas uu dhacaankii maskaxda ku soo daysay marka culays nololeed ku soo food saaro uu jirku ka falcelinayay ayaa la yiraahdaa stress. Dad badan baa siyaabo badan ku macneeya. waxay ka mid yihiin kelmadaha aan loo haynin macnaha saxda ah ee af Soomaaliga. marka anigu waxaan ku soo gaabiyaa badanaa stress inuu yahay cadaadis maskaxda ku yimaada, cadaadis maskaxeed. marka kelmadaas ayaanu isticmaali doonaa inta la talinteenu socoto. stressku marka maadaama uu yahay marka dhacaanka maskaxda soo dayso, markasta maskaxda ayaa jirkeena xukunta. maskaxda waxay noo sheegto ay na farto ayaan samaynaa. qofka marka uu madaxa ka wareerayo ama maskaxda ka wareerayo ama uu stresska uga sii gudbayo meelayow kale sida depression, anxiety, noocaas oo kaleeta ah isku buuqa waxaa depression baa ah, anxiety-na waa werwer af Soomaaliga. okay, marka isku buuq iyo werwer qofka intuu uga sii gudbayo stresska qofka qabanaya ama cadaadis maskaxeedka ku imaanaya ayaa wuxuu u kala baxaa labo. mid waxa waaye cadaadis maskaxeed fiican oo annagu aanu u baahannahaba, oo haddii la'aantiis ayaanan waxba qabsan karaynin oo noqonaynin qof bini aadana oo wax laga dheefa aanan noqonayn, nafteenan aan waxba u samayn karaynin. waxaa la dhahaa good stress afka Ingiriisiga. waxaa jira isagana bad stress amaba cadaadis maskaxeedka xun oo ah midka marka dambe xanuunada keena. marka hadda waxaan idin hormarinayaa maanta oon idin sharxayaa saaka what is good stress. stresska wanaagsan muxuu yahay? stresska wanaagsan waxaa ka mid ah oo tusaale ah ama uu yahay midka annaga aanu ku shaqayno, midka aanu nagu kalifa inaanu caqabadaha nolosha xaggeeda naga soo food saara inaan ku xalino. raalli ahaada kafee iyo shubanyaa warmar kafeegayga iska cabi doonaa. Starbucks fadhiya tareenkayga saacada ka dhiman goortuu baxaayo shaqo u socdaa London insha Allah. okay, gabdho walaalayaalow stresska fiican marka waxaa ka mid ah for example waxaa ku soo food saaraya cadaadis dhinaca nolosha wax badan wixii doonaan ha ahaadaano. cadaadis dhinaca odaga ah, cadaadis dhinaca maxay ahaytoonay ah isagal Ismaaciil waa ku salaamaya walaalo. cadaadis dhinaca maxay ahaytoon dhinaca financialka ama maaliyadda qoyska, sidaad biilashii u kala bixin lahayd, sidaad wax u kala bixin lahayd, waxaas oo dhan baa kusoo food saaraya. cadaadiskaas markuu kusoo food saaro maskaxda waxay soo daynaysaa dhacaankii aan idin sheegayay, jirka ku daynaysaa. jirka markay ku dayso jirku wuu ka falcelinaya, dan stressa meeshaas imaanayo. stresskii ama cadaadiskii maskaxda ee meeshaas yimid waxay noqonaysaa marka inaad wixii ka fikirto. waa good stress wixii aad ka fikiraysaa saad ku dhammayn lahayd. okay, waxaa laga rabaa gas bill, waxaa laga rabaa electricity koronto bill, korontada, waxaa laga rabaa cunadii, waxaa laga rabaa caruurtii iskuulkoodii iyo transportationkoodii, lacagtii ma dhamma lacagta aad hayso. marka maxaa imaanaya? waxaa imaanaya inaad fikirto saad samaysaa. maryan ka soo daysa lacag iskaga fuji baahida. walaalka oo jira halkaa oo adiga ku dhaama ama Dubai ganacsata ka ah example loo soo qabsanayaa. maxay ahaytoonay asagana weydiiso caawinaad, baanka tag wax dayso, maxay ahaytoona shaqada
awariska ama saacadaha aad shaqayso kordhi si aad lacag fara badan kuu soo gasho ood u xaliso mashaakilaadkaaga. taas waxaa la dhahaa marka good stress. wixii ku soo food saaray waad xalisay, ama shaqadii baad kordhinaysaa, ama shaqo labaad baad raadsanaysaa, ama maxay ahaatay odagii hadduu joogo odagii baad leedahay warniyo way nagu dhegan tahay. laakiin badanaa wadamadan qurbaha badanaa odayaal nooma joogaan haddaanu nahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed in somehow cidna ku eedi mayno, odayaasha raggeena ku eedi mayno, cidna ku eedi mayno, laakiin nolosha iyo dantaasaas tira saas la ajligeed good stress waaye kaasoo kale. maxaa yeelay cadaadiskii kusoo food saaray ayaa xalisay. hooyada ayaa xanuunsatay, meel kaa fogay degan tahay, cadaadis baa kusoo food saaray. cadaadiskaas kusoo food saaray waad fikirtay hooyo maxaad ka samaysaa, waxaad go'aansatay inaad caruurta iskuulka fasax uga qaado sad hooyo u soo eegto. that is good stress. stresskii kusoo food saaray wax fiicanaa ku xalisay. ma fahamtay? hadda aniga maanta halkanaan fadhiya example waxaan ka soo tegay gurigayga oo ku yaala magaalada adigu aad uma dheera laakiin magaalada ku yaala. okay, waxaan imaaday stationka tareenka stationka marka tareenkaygu wuxuu baxayaa 9:15 London u aadaya 2 saacadood ama 1 saac iyo wax yar ka bacda London aan joogaa. okay, anigoo sidaa oo tareenkii wax kasta booking garaystay isma raajin gurigii iskuma daahinin. horaan u soo dhaqsaday saacad iyo bar baan ka soo hormaray xilligii aan tareenka sugayay. barkaas waa intaan iska daba warwareegayay, kafee baan iibsaday, halkan baan ka idinka idin la hadlayaa. saacad wax yar dhiman ayaa ka dhiman tareenkayga. marka waxay noqonaysaa aniga stress mi ugu qabanayo safarkii. sababtu waxa ay tahay waan ka sii hordagay oo waan ka sii tabaabushaysta oo si fiican uga sii tabaabushaysta. okay, that's marka haddii marka aniga haday ninka taxi soo qaaday, taxiga markuu soo qaaday wuxuu ahaa Uber taxi driver. tagaasida black cabka waxay istaagaan meel gaar ah. example ba waxa soo dhanada kuugu soo qabanaya saa ii fahamtaan hablo. taxigii wuxuu igu yiri xagee rabtaa inaan kugu dajiyo. waxaan ku iri miyaadan qabin taxi ranking meelaha tagaasida istaagto. ninkaasi haddii aan xageen kugu dajiyo uu yiraahdo stationkuna wuxuu leeyahay 10 albaab, ani stress u gelin lahaa, waan ka walwali lahaa halka ugu dajin lahaa. way uga walwalayaa marka isaga shaqadiisu tahay inuu meesha tagaasida i joojiyo. waxaan ku iri don't you have taxi ranking? markaasuu ugu yiri haa waan leenahay. okay, halkaa ii geed maxaad ii weydiinaysaa? haddaad stationka soo qaado oo stationka uu leeyahay meel tagaasida ay safato halkaas unbaad ugu dajinaysaa. drop offka ayaa ugu dajinaysaa. okay, sidaasaan marka kaga badbaaday culayskii ninka taksiilahaana uu isaari lahaa. marka stressyada nolosha waxa waaye waa daily, waa every minute, waxa waaye waa every hour, saacad kasta, daqiiqad kasta ay kula soo gudboonaanayaan. telefoonkaaga iyo facebookkaaga iyo maxay ahaytoonay ilaahay kuma samadiiday social media isticmaash ayaa stress kuugu filan. Soomaadan garan marka waxaa loo baahan yahay inaa stresska iska dhinto. iskaga dhimay marka wax kasta oo culays kugu keeni lahaa waa ka sii tabaabushaysanay. waxyaabaha hadda dumarkeena stress ku kordhiyo waxaa ka mid ah kala daadsanaanta, qorshe la'aanta guriga. maxay ahayd nadaafadii bay rabtaa inay nadiifiso gabadhii, caruur fara badan bay mindhaa haysataa, nadaafadii jadwal uma samaysanayso, ilmihii kuwii wax qaban karay uma dirsanayso howlaha. tana stress qaadaysa. stresskaasi hadduu sii kordho problem ku noqonaya, ayadoo ku soo noqonaya. okay, good stress waxaan u malaynaa marka inaa ila fahamteen. mar kale aan ku celinayaa what's good stress ama cadaadiska maskaxda ku yimaada kan fiican waa kee. kaasi waa mid aan anagoo dhan u baahannahay, maalin walbana waanu ku badbaadnaa. waxa waaye balaas baa ku soo food saaraya maskaxdii dhacaankii aan idin sheegaya iyo jirka ku sii daynaysaa. waxay jirka u sheegaysaa war hoy ogow waa lagugu soo socdaa ama waa lagu soo weeraray. jirkii difaac buu galayaa. difaacii jirka uu galay iyo dhacaankii maskaxdu soo daysay labadaa dhexdooda waxaa ka dhalanaya stress. okay, stresskaas ka dhashay marka kan fiican maxaa waaye waa markii wixii ku soo food saaray haddaanay wax ku soo food saaran xaalad adduunkan haddaadan gelin waxba ma qabsanaysad. ogow way kuu fiican tahay inay stress ka fiican ugu soo food saaro. waxaa ka mid ahoo kale lacagtaa kuga yaraatay ama dhibaataa kaaga timid, adii odagaaga isku booqdeen, waxaana lagu dhammayn karaa wada hadal yar
odagii ku tiraahdo walaal macaan abow soo dhawow aniga sidan iyo sidan iyo sidan baan kaa tabanayaaye maxaa xal ah ma sidan baan mid walba midka kale kaga sii jeestaa oo reerkeenu ku burburinaa mise soo daad waxaas oo dhan waxay keenayaan in aad xal ka gaadho wixii dhibaato ah oo adiga ku haystay ay xal ka gaaraysaa okay xalkii baa ka gaaraysaa dhibaatadii ku haysata xal u helaysaa okay maxaa stresska fiican oo kaleeto ka mid ah lacagtaa kugu yaraatay gaaskii maadan bixin korontadii maadan bixin ilmihii cunno uma soo iibin mid baa kabihii ka idlaadeen mid baa kabti ka go'day mid baa shaarkiisi ka noqday dharkii iskuulkaa laga rabaa waxaas oo dhan lacagtii aad haysto ma ku gaarto waad baxday cumar ama caasho ayaad caawinaad weydiisatay oo saaxiibada ah ama walaalaha ah ama qofka ama bankigii baa dayn weydiisatay ama qof kale walaala baa dayn ka soo qaadatay waxaas oo dhan waxaad ku xalisay good stress soo marka waxaad ogaataan dadkan ku dhahay stress baa ahay stressku ma wada xuma mar buu fiican yahay stressku mar buu wanaagsan yahay mar buu because markii uu wanaagsan yahay waa markii wixii cadaadis ah ee nolosha kaa soo food saaray aad xal u heshay ما فهمتي مدك القف وحب ما قبسنا example واد شقيسة محيه تونينا شقيسة لقى ربع أو العكس صو شقيسة أو تصدر مالية هذه باهي هذا العقد ما رئيس هذا غير غير كذا وحلقة ربع إن إسكول دقته أما جامعة باتكتا هذه لدونه وحاس أودن أو إسكول طريق وحلقة ربع إنا حلسه تام بلاين الناس ستريس في عن وحدة وفكريسة أو وحلقة ربع ما أنت intaasoo kalaas inaad ka qayb gasho intaasoo course work inaad ka shaqayso waxaa lagaa rabaa intaas oo maxay ahaatonay oo howla inaad xafiiskii ka qabato ama meeshii aad u shaqo tegayso meeshii doonta ha ahaato timekii aad balaan garaynaysaa marka xilligaad seexanayso xilli fiican seexo aroortii soo kac aroorta waxaa ku fiican intaad shaqada aadan inaad waxbaro course workii wixii iska sameeyo duruusta akhriso bas maskaxdu waa fresh subaxa hore aad bay fresh u tahay haddaad rabto inaad wax barato waxay doonaan ha aadaan quraan jaamacad dhigo college dhigo iskuul dhigo waxaa fiican aroorta hore inaad barato waxaaga okay aroortii waxbar hadhowti adigoo nadiif ah salaadaada waa iska tukatay aroortii waxbaa baratay waa iska qurquraacatay ilmahaaga iskuulka u kala darsadan adigana waxaad aada shaqadaad ka soo noqotay jaamacaddii aad soo martay ama jaamacaddii baad laba maalin dhigataa wiigii waxaaga time baline inaa samaysan waxaad si fiican u qorshaysatay waqtigii yaraa ee ilaahay ku siiyey yaa si fiican u qorshaysatay halkaas waxaad kaga badbaadaysaa culayskii ku soo food saaray waxaad ku xalisay good stress stresskii ku qabtay wuxuu ahaa good stress sababtu waxay tahay waad xalisay culayskii marka waxaan u malaynayaa hablo inaan maanta intaasan kaga ekaynayaa maadaama aan safar ahay tareenka inuu iga tago mar raba shaqana isugaysa adag oo London u socdo okay waxaan ku soo gabagabeynayaa rag badan baa waxay ii soo direen emails waxay ugu dhaheen waa ugu bixisay boga hablaha u sameysay be happy sisters ama abaya faraxsanaaw waxa ugu bixiyay abaya faraxsanaaw haweenku haddaan hablaha nahay waxaan nahay laf dhabarkii bulshada annaga la'aanteena ma jirayso bulshadeena Soomaalida annaga la'aanteen ma jirayso tanoorkii hadlaaya tareenkii iyo hogeysiska annaga la'aanteen ma jiro karaayaan soo daat maadaama aynu nahay maxay tahay laf dhabarkii bulshada oo aanu nahay agaasimihii qoyska oo aanu nahay ilaahay ku masamadeeyay madaxweynihii reerka oo aanu nahay wehelkii iyo jacaylkii odaga oo aanu nahay raaxadii iyo gogashii odaga maadaama xulayso fara badan iyo mas'uuliyad fara badan ayna saaran tahay noloshayada iyo badqabkeedu aad bay muhiim u tahay sababtaas ayaan u iri be happy sisters waxaan u malaynayaa inaan idin sharxay marka boowayaasho idinku nala jooga waxa anagu hablaha aan kala talinayo oo u sheegay unba idinkana idin anfacaya laakiin halkan hadda hablahay u gaar tahay casharadan hablahay golkada kuwa nala socon kartaan waana ogolnaa waana soo dhaweynaynaa inaad nala socotaan saas la ajrigeeda waxaa idinka tagaaya tareenkayga waa soo dhow yahay xoogaha ka dhimaadeen nus saac camal ka dhiman waa idinka tagaaya insha Allah la talinta labaad anigu 10 ma dhahayo waxaan 10 ma aha waa la talin caadi wax isu sheegis la talinta labaad waxay noqonaysaa bad stress ama stresska xun ayaan sharxi doonaa kadibna waxaan u gudbi doonaa sida la isaga yareeyo inkastoon hadda wax yar ka soo qaata sida la isaga yareeyo saas la ajrigeed hablo qayra isku ognahay waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye